ninkan sharma hiil walaala leeyahay aniga miyaa layla qabaatalo ma nin baana wada qaba anigii sharmaa ka hiil walaal ma laba qof waxaasaan wada nahayo nin wada qabo inantayda anigaa dhalay waan eriyaya imikana waan xidhaya anaana eriyay waan gowracayaa sidaan anaa dhalay xor anaa u ah anaa soo korsado intaa soo leekaystay sidaan doonaan ka yeelaya isaga iyo bilaadan aabaheed baanan u daba fadhiisanayn iyo tii aniga dhashay hooyaday bal markaa ninkan aniga wuxuu miiriyaha ii wadwado uu iiga hadhi laayahay iga hadh baan idhi inantayda iiga qaad faraha hadday bugtaana ii bugtaa hadday dhimataana iga dhimanaysaa isma naqaano isku qabiil ma nihin isku wadan ma nihin idaa oo na nabadgeli oo caaqilkayga baa la hadlay oo walaalkay baa la hadlay oo carruurta adeerkood baa la hadlay waa bahal indha adag oo dhintay oo uskaga oo saqajaana oo iimaankii ilaahay ka qaaday iimaankii shahaadadaba ilaahay ka qaaday mar walba wuxuu igu leeyahay maxaad ankoodka soo ahaa in ay ku sheegeen cudurka kansarka waad ogtihiin dhakhaatiirtu waxyaalo badan bay sheegaan laakiin dhakhtarkan Etoobiyaanka wuxuu noo sheegay cudurka inuu kansar u ekaa dhuunta calooshana ay qayb dhan dilacsan tahay dhuunta tuubada cunnada inay dilacsan tahay misna ay dhiig tufayso una baahan tahay xaalad degdeg ah in wax looga qabto wakaas been ma sheegay kombiyuutarada waa kuwa dadkii yaqaana qofkii tagi kara cusbitaalka magaciisa wakaas halka ku qoran waa tagi kartaan qof kasta oo baahan cadeyntiisa soo ogaan karaa waalidka dhalayna waa u sheegay hooyo waa la hadlay si naxariis leh waa ula hadlay wax kasta waa ku iri afkeeda waxay iga tiri gabadheeda anaa guriga ka ciri maxaad ku daba dhigay ilaahow hadda been sheegay caafimaadka aan maanta halkan ku hadlay allah iga qaadina been sheegay gabadheeda anaa guriga ka ciri bay tiri waa ogay caqabado badan baa kala kulmay kartid ma soo istaagi kartid baa lagu yiri runtan ma sheegi kartid hooya tahay maanta waxba ku dhahayo waxba ku dhihi maayo waayo hooyo waa hooyo laakiin Soomaaliya waxa idin sheegaya gabadha yarta hatta caawin lahaydeen iyo hatta barta uga dhaqaaqi lahaydeenba aniga haddii hooyadeed iyo familigeedu ay raali uga noqdaan inaan caawiyo diyaar baan u ahay anoona bulsho lacagna ka ururin arrinka kale Muniira shalay ayadoo socotay ii tiri ayadoo socota bay tiri caawi maantana wax kasta cadeynteeda ayadoo haysata ayay familigeeda u tagaysaa waxaana diyaar u ahay wax kasta oo caawimaad iga baahato caqabad kasta ay u noqotay inaan diyaar u noqdo dhammaan Soomaali Maxamed iyo familiga Muniira waxaan u sheegayaa uma baahna inaad